دعيا هذا إيمان لا إيمان وإلهي سبحانه وتعالى أذن تلسارن وأين نكون وقن نرشوا إننا أهين جب ودي هدي اللي يراه ذوال هرتين بس أهين هل سوين أيو عافمات كذي نرش هذا كجرتا إيمان كمرك وحيابها كذا لنا يوحكم ذا مركان إذا لا إيمان يش معناه هذا ما هنا الصلاة الدكان معناه هذا ما هنا هذا دوال كورو يهي قف مسلم أهين معها لكن إيمانك وحيابها كذا لنا يوحكم ذا قفك مركو إيمان لا يهي قفك مركو إيمان لا يهي إيمانك الصحة وحيابها كذا لنا يوحكم ذا دجنان يعلوش وقوات كات الرين بعد عضي نمبر كو إيمانك هذا مركو السجنية وهذا هي ليس دجنان يعلوش أتكيستد وأتراهد no not the end of the world الدنيا دي ولا ما تيمه إن أتراهد وقلبك كوبات علوش وقوات كاته يدجنان الرين اللي بعد كهلي استحكم ذا إن أود ويلتد إن أركي كرتد وحأين ضدك كلا أركين the invisible والأركرتان waxayna dadka kala arkin waa maxay marka horumarkaaga adigoo madaxa adigoo ka gudbay hawsha sanad hadii la noqonayna ka gudbay hadaan la noqonayna ka gudbay horumaray oo meesha macallimiinta iyo maamulka maanta go'aanka ku gooynaya booskoodii adoo fadhiyo meesha wasaaradda maanta imtixaanka ka qaaday ee natiijada soo bandhigtay akhyaarta fadhida bari adiga afariisan doonto the invisible way adigu ma aragtid dad badan uma muuqato laakiin qofka iimaanka leh إيمانك أذك كقبل نفتيس إلهي سبحانه وتعالى تاسوي أمه قناة سواء وسهلن تاي كل جس إنه قصلا صورة قلا يدو أمه قتهلك وتجرها إن آمن تد أياك دلنا يسا وح أمه قضى إننا معقول أهين هذا إننا معقول كويه ده impossible أيا معقول كوا حيابها ضدك أمه قضى ولم قضى ضدك إننا معقول أهين معقول أمه وأما حيوان معقول ولا مغضين مثلا wiilkii yaraa iyo gabadhii yaraa imtixaanka ku haray sanadkii 2020 bas way fashilantay way u dhamaatay waxyaabahaas oo imisaan aragnay dad laga sabray oo la yiri waa bas kadibna ayagoo caadkas maray soo baxay ku guuleystay nolosha bidix iyo midig kor iyo hoos intaba kuwii isdhahayay waxba idin hagaagay nimanka waa ka horeysaana halkaas hoos joogay imisaan aragnay kuwa grade A haysta oo siday ku heleen ba alla ogyahay كدبنا شغاله ونقضي grade C iyo grade D iyo kuwa F inta loo soo qoray kadibna jajaftay kadibna noqday qaybta kore you can do it waxaad sameyn kartaa way iimaanka saxda ah naftaada ku qabtid waxyaabaha ka dhalan kara waxa kamid ah cajiibka inaad la qabsan kartid xaalad waliba oo cusub oo kugu timaada adiga the unknown way ku fududa wax cusub kugu yimid very adaptable والله قبسني ساد الباب maxaa keenay waxaas naftaada iimaanka ku qabtid kalsooni ayaa jirta buuxda oo aad aaminsan tahay that adiga ina tahay waad is ogtahay waad xogan tahay ilaahay baa leedahay subhanahu wa ta'ala waxaad aaminsantahay inuu ku dayacin waxaad aaminsantahay inuu garabkaaga taagan yahay waxaad aaminsantahay waxa ay sheegayaan oo dhan in ayna waxba ku ahayn adiga hadii dadku oo dhan ku wada tashtaan ka war magaaladii oo dhan ay tiraahdo hebel baan ka taqlusaynaa ama ay macallimiintii oo dhan isku raacaan imtixaanka lagu rido ma kula tahay inay kugu ridi karaan hadduu ilaahay kugu talagalin la ma kula tahay dhamaantood haddii kugu dadaalaan inay ku hormarin karaan maya wax waliba waxa ay ku dhacaan qadarta Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin iimaanka adiga isku qabtid iyo kalsoonidaada qayb weyn ayay ka tahay sidii aad u wajihi lahayd duruufta hadda ku haysta nooci doonta ahaat imtixaan kalima aha duruufo kala laga yaabaa inaad maraysid arday jaamacada inaad tahay suuragal maada kugu soo noqotay marka tiraahdo imisa macallimiin aan jaamacadaha uga ahayn maada iyo 2 iyo 3 inta lagu yeeshay sanad iyo 2 soo noqday kadibna ayagoo babanaya ka baxay halkaas caad ka maraya ka qurxoon ka fiican ka hormar barsan ka xoog badan ka khibrad badan kuwii hore ama markii hore dhamaanto adkayso hore u soco marna gadaal ha eegin waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan dhamaanteen u baahannahay inaan gacmaha isqabsano oo aan hal noqono sidii aan horumar u gaari lahayn dhalinyaradeenna Soomaaliyeed u horumarin lahayn cid waliba oo saameyn ku leh dhalinyaradaas waxa uu qabato haddii aad jaamacad joogtid macallin tahay u yeer talooyin si haddii aad iskoolkii ardayda ay ka hartay tahay u yeer la fadhiista niyadda loo dhiso bal ka waran iskuulaadkii ardaydaas ay ka mid ka ahaayeen
oo ay ka hareen oo wali ardaydii aan la xiriirin wali aanan u yeerin ardaydii la fadhiisanin u dejinin quluubta u sharxin muxuu ah siday wax yihiin ka waran iskuulaadkaas غير مسؤولnimo weeye haddii fadlan arrimahaas ay jiraan waa in si degdeg ah ardaydaas loo gaaraa ma anfacayso inay guriga dhex fadhiyaan ma anfacayso in sidan looga aamusnaado sidaas in looga tago sax ma aha waxaan kusoo gabagabeynayaa ugu dambeyntii gabay uu lahaa Carays Ciise gabaygaas waxaa la yiraahdaa dhan dabagaale si fiican baad u xasuustaan dhammaantiinna waa taqaanaan laakiin sababtaan u soo qaadanaya waxa weeye wuxuuna tusayaa in arrimaha aan wadno dhan ay yihiin dhan dabagaale muranka iyo dooda iyo sessionada waxa la qabanayo oo dhan waxa weeye waxba kama jiraan mar haddii ayna ka soo bixin tallaabooyin muuqda oo dadka wax u qaban kara waxaa nasiib darro weyn ah in natiijada imtixaanka ay muujisay in ardaydeena Soomaalida qaar ka mid ah af Soomaaliga ay aqoon u lahayn waa mashaakil markii arrintaas haddii arrintaa ay sax tahay oo natiijadaasi ay dhab tahay oo ardaydu ay ku liitaan af Soomaali iyagoo ku fiican luqadihii kale waa arrin qaran waana halis ku soo wajahan dadkeena Soomaaliyeed waana in laga baraarugaa marka waxaan jeclaan lahaa inaad ila dhageysatid murtida muujinaysa in inta aan meelaha dhoobannahay aanan dhabtii la gaarin wali waxa aan wadnana ay yihiin dhan dabagaale ila dhageyso Carays Ciise dabcaaliya doonga iyo dhaadhaan la iskama dhige haddii uu dhiidhiyaa nin raga dhaawaca ku yaal dhaqsaba waa kii dhayde dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli isa lagu dhargaa maadii kale waxaan lahaa dhalin iyo oda dhiciyo dhidigood iyo dhalaan haddaynan dhabarka godin dhusuqu oogada ku dhegin dhaqaaluhu waa dhantaal dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli isa lagu dhargaa maadii kale waxaan lahaa gugii waa kaa dhacayo cirkuna waa dhaysan yahay dhulkuna dheef buu hayaa ninba dhoontuu toshuu hadhowdii dhaansada dhaqaaq baa nala gudboon intaynu dhoobannahay dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli isa lagu dhargaa maadii kale waxaan lahaa Soomaaloy dhagala ay dhagaxati ka adagay qalbiga tii laga dhaqoy tan meel dheer dhowrinay walaalkeed dhiigi iyo dhaxdeeda u dhiiranay dhibaato cadow ku dhigay dhaqaala u qaadatoy dhusuqa unku iska dhaqay midii lagu dhaafay waxba dhalanteed cidla qalbigu yu ina dhifsane dhaqaaq baa nala gudboon intaynu dhoobannahay dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli isa lagu dhargaa maadii kale waxaan lahaa ilmuhu dheeldheelin iyo dhoolaho loo qaawiyiyo dheef uma qaataan dhunkood dhiilkaa loo buuxiyaa waxaad meel dhigi jirtay hadhowdii kaa dhaxlaan dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli isa lagu dhargaa maadii kale waxaan lahaa intaa dhiila aan geshiyo dhawaaq baan ugu hayaa ma aha dulaga dhashe balaayo aan dhaga lahayn dhadhaab meel yurur iyo dhagaxyaa la hadli kara waxba dhalanteed cidla qalbigu yu ina dhifsane dhaqaaq baa nala gudboon intaynu dhoobannahay dhabtii lama gaarin weli dhan dabagaalaan wadnaa waa idin dhaarinahayaa bal hadalkayga dhugta dhibli see loo dhargaa aad iyo aad u mahadsantihiin intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah